بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. kusoo dhawaada Bio Academy. Bio Academy waa page ka la heedeen kula heedaa Facebook iyo YouTube ka aan kusoo gudbin jirnay maadooyinka scientific insha Allah taala waxaan dib u bilaabaynaa maadada biology-ga oo horaan usoo baranay horaan usoo dhameynay chapter-kii koobaad. insha Allah maanta waxaan bilaabaynaa chapter-kii labaad ayaan maanta bilaabaynaa dawal yiraahdo chapter 2 ayaan maanta bilaabaynaa casharkiisa koobaad. magacaygu waa Salmaan Cagayare. insha Allah taala chapter 2 ayaan maanta noo bilaabanaya. chapter 2 magaciisa sida hore usoo sheegnay waxa weeye waa endocrine system loo yaqaano habdhisqanjireedka marinka aan lahayn. habdhisqanjireedka marinka aan lahayn ayaa loo yaqaanaa endocrine system. in biology marka la yiraahdo qanjirada way kala duwan yihiin. sidaan ognahay humanku wuxuu leeyahay 3 qanjir ayuu leeyahay oo la kala yiraahdo endocrine system kan maanta aan ka hadlayno iyo exocrine system oo ah qanjirada marinka leh iyo mixed gland. saddexdaas ayuu leeyahay. qanjirada qaarkii ma lahan wax marina ma lahan oo tubooyin ama dhuumooyin ay ku soo gudbiyaan hormoonka ay ku soo dayaan ma lahan. sida kan aan maanta ka hadlayno loo yaqaano endocrine system. qanjirada qaarkood waxay leeyihiin marina ay leeyihiin ama tubooyin ama dhuumooyin wax ku soo gudbiyaan ay hormoonka ku soo dayaan ay leeyihiin waxa loo yaqaanaa exocrine system ayaa loo yaqaanaa. halka qanjirada kalena qanjiro kale ay jiraan kuwaas oo marna hormoonska ay soo daayaan tuba ahaan ama dhuun ahaan ku soo daaya iyagoo soo marsiinaya marka qaarna waxay sameeyaan way iska soo fasaxaanba. marka saddexdaas ayaa jirta oo kala ah endocrine system qanjirada marinka aan lahayn iyo exocrine system iyo qanjirada marinka leh iyo mixed gland oo loo yaqaano qanjirada isku dhafka ah oo marna marin leh marna marin aan lahayn. insha Allah taala maanta waxaan bilaabaynaa chapter-keena labaad endocrine system. Okay, you have previous study si aad horey u soo baratayba the tissue waa in nudaha and organs iyo xubnaha of vertebrate body nooleyaasha leh lafdhabarta leh cooperate inay wada shaqeeyaan. sababtuna maxay tahay to maintain si u joogteeyaan homeostasis oo loo yaqaano xasiloonida jirka through ayagoo sii marsiinaya the actions ficilo of many regulatory mechanism habab badan oo waxa waaye maamulitaan sameeya. two systems labada hab however si kastaba ahaatee are devoted exclusively waa kuwa si xoogan uga shaqeeya to regulate the regulation maamulitaanka of the body organs xubnaha jirka. the nervous system habdhiska dareenwadka and endocrine system iyo habdhiska qanjirada marinka aan lahayn labadaba way isla shaqeeyaan si xoogan ayay iskula shaqeeyaan ayagoo qayb ka qaadanaya maamulitaanka jirka. hore usoo baranay nervous system wuxuu ahaayay habdhiska dareenwadka fariimo ayuu qaadayay kan naftiisana waxa waaye waxaa la yidhahdaa waa hormones ayagana fariimo qaada ama waxa waaye qayb ka qaata maamulitaanka jirka. both labadaba oo lagu wada endocrine iyo nervous system release way soo daayaan regulatory molecules isku dhisyo wax haga that controls kuwaasoo maamula the body organs xubnaha jirka by binding ayagoo qabsanaya to the receptor proteinada wax qabta on kuwaasoo dusha ka saaran or ama in gudaha ugu jira the cells unugyada of these organs xubnahaas dusha ayay ka saarnaan karaan ama gudahooda ayay ku jiri karaan. waa iska concepti. Okay, in this chapter marka chapter-kan we examine waxaan qiimeyn doonaa the regulatory molecules isku dhisida waxaa yiraahdaa xaga of endocrine system ee habdhiska qanjirada marinka aan lahayn the cells unugyada and the glands iyo qanjirada that produce kuwaasoo soo saara dam iyaga and how they function iyo siday ula shaqeeyaan to regulate maamulitaanka the body activities oo la jirka. as you go through this chapter hore u socodka chapter-kan you will be able to waxaad awoodi doontaa to clarify inaad kala saartid the meaning micnaha of ductal gland qanjirada marinka leh and ductless gland iyo qanjirada marinka lahayn and hormones iyo hormoonada. Okay, structure qaab dhismeedka of endocrine system qaab dhismeedka uu leeyahay marka endocrine system habdhiska qanjirada marinka aan lahayn consist of wuxuu ka kooban yahay glands qanjiro while separated kuwaasoo si weyn u kala soocan from each other midba mid kale uu ka soocan yahay with no physical connections ayadoo aysan jirin xiriirna duleed oo banaanka aysan jirin. Okay, si fiir ayaa lagu sawirka hal dhibic laba fiir ayaa lagu
the endocrine glands qanjirada marinka aan lahayn groups waa kooxo of secretory cells unugyo wax soo daaya surrounded by kuwaas oo ku hareeraysan an extensive network of capillaries shabakado diiftaafyaha aad u ballaaran that facilitates kuwaas oo fududeeya diffusion duusitaanka of hormones hormoonada oo loo yaqaano chemical messengers ayaa fariimo kiimikaaleed from kuwaas oo ka yimid secretory cells unugyada wax soo daaya kabacdi inta la geynayaa intuu ayadoo lagu darayo to the blood stream qulqulka dhiiga saaruusu sheegnay qanjirada marinkaan lahayn hormones ay soo daayaan si toosa waxaa loogu shubaa waxaa lagu magacaabaa blood streamka ama qulqulka dhiiga okay sida sawirka ka aragtid sawirka halkan inoo saar wuxuu muujinayaa ama waxa la yiraahdaa endocrine system ayuu muujinayaa halkan waa hypothalamus ah hypothalamus waxa ka hooseeya hor u soo barano pituitary gland oo loo yaqaano master of endocrine gland kan madaxda u ah kan dhan maamula okay pituitary gland wuxuu ka tirsan yahay endocrine gland ayuu ka tirsan yahay qanjirada marinkaan lahayn waxaa kaloo kamid ah thyroid gland ayaa kamid ah qanjirka dhuumoodka waxaa kaloo kamid ah adrenal gland oo loo yaqaano qanjir kiliyeedka waxaa kaloo kamid ah gonads oo loo yaqaano xubno gonad organs xubno tarmeedada sida testis in male xiniyaha ragga iyo ovary in female iyo waxa la yiraahdaa waxa sameeyaha dumarka ama lidiga waxaa kaloo kamid ah qanjirada marinkaan lahayn pancreas inkastoo pancreasku marka qaar uu shaqeeyo as exocrine marka qaar waa kaan soo sheegin oo kale marna wuxuu shaqeeyaa exocrine gland oo tubo wax ku soo daya marna uu isku soo fasaxa waxaa kaloo kamid ah thymus oo ah qanjirka dusha ka saaran wadnaha iyo parathyroid gland oo loo yaqaano kamid ah ayraade thyroid glandiga halka ayuu ku yaal soo jeedid afar unug oo kamid ah ayaa loo yaqaanaa parathyroid gland gadaalan ku faahfaahin doona parathyroidka waxay qabtaan shaqo ay qabtaan muhiima taas oo ah calciumta markay dhiigga ku yaraato inay dhiigga ku fasaxaan calciumta ay qabtaan gadaal ku arki doona duwal yiraahdo marka qanjirada marinkaan lahayn xalena koow waa pituitary gland laba waa thyroid gland saddex waa adrenal gland afar waa testis in male shan waxa waaye waa ovary female lix waa pancreas todobo waxa waaye waa thymus sideed waa waxa la yiraahdaa parathyroid hal xaba inaga maqan loo yaqaano pineal gland oo laga helo maskaxda laga helo ah qanjirka ugu yar ayaa naga maqan marka intaas loo yaqaanaa endocrine glands hadii lagu yiraahdo three endocrine glands waa pituitary gland thyroid gland adrenal gland testis gland ovary gland pancreas gland thymus gland parathyroid gland iyo pineal gland inta loo yaqaanaa endocrine gland ayaa loo yaqaanaa marka okay aan ku socono they are also referred to as sidoo kale waxaa lagu qeexi karaa dactylus gland qanjirada marinkaan lahayn because maxaa yeelay hormones dheecanada diffuse waa kuwa loo duusiyo ama u duusa directly si toos ayay ugu duusaan ayaa into the blood stream qulqulka dhiigga ayaa markaa si toos ugu duusa marka endocrine gland waxaan dhihi karnaa waa qanjirada marinkaan lahayn kuwaasoo hormoneska ay ku shubaan si toos ugu shubaan blood streamka ugu shubaan hormones marka waxaa yiraahdaa hormoneska ama dheecanada are then carried in the blood stream waxay sii raacaan ama sii qaadaan qulqulka dhiigga kabacdi intii la geynayaa to the target tissue nudaha bartilmaameedka u ah ee la rabo in waxa waa laga shaqeeyo ayaa la geynayaa anda iyo waxa kaloo la geynayaa organs xubnaha u baahan that may quite distance kuwaasoo yeelan kara masaafo kala fog si aan usoo sheegnaba sawirka usoo aragnay way kala fog yihiin endocrine glandiga fiiri pituitary-ga wuxuu ku yaalaa maskaxda thyroidka waxaa kale halkan ku yaalaa adrenalka waa kan waa keliya waa naqanaa testiga marka waxaad dareemi kartaa in masaafo dheer ee u dhexaysa marka target cells ayaa la geynayaa marka aan organs xubnaha that may quite distance kuwaasoo yeelan kara masaafo fog weer halkaasoo they influence saameyn ku yeelan kara the cell growth korinshaha selka and metabolism iyo dheefshiidka marka hormones waxay leedahay influence waa kuwa saameyn ku leh almost every cell unug kasta ayay waxay ku leeyihiin saameyn an organs iyo ama organs iyo xubno in our body jirkeena u leeyahay marka hormones waa kuwa saameyn ku leh lagu yiraahdaa maxay saameyn ku leeyihiin every cell unug kasta and every organ ee jirkeena laga helo ayay saameyn ku leeyihiin war cadaaday hormones marka maxay yihiin substances waa waxyaabo secreted by kuwaas ay soo daayaan cells unugyo that act kuwaas u shaqeeya to regulate in maamulaan the activity of other cells unugyada kale in the body ee jirka laga helo hormones are carried by the blood dhiig ayaa qaada to wuxuuna geeyaa target cells unugyada bartilmaameedka ah with appropriate receptor ayagoo qaadaya waxaa lagu magacaabo receptor ku habboon for giving hormone ayagoo siinayo hormones waxaa yiraahdaa u baahan marka
Okay, some endocrine glands qanjirada marinka leen qaarkii sida pancreas ganaca. Okay, also waxaa la dhihi karaa exocrine gland qanjirada marinka leh. Exocrine gland secrete way soo deysaa secretions ay soo dayaan waxyaabo through duct waxay ku soo dayaan tubo ama dhuumoyn ay ku soo dayaan oo sida tube like structure waa qaab dhismeed tubo camal ah ay soo marsiiyaan hormoneska. These secretions waxyaabahaasi can include waxa kamid ahaan kara water biyaha ayaa kamid ah, enzymes dheecaanada ayaa kamid ah, and mucus iyo xabka ayaa kamid ah. The ducts marinada support waa kuwa caawiya ma taageera the substance waxaas to specific location in la geeyo boos cayman inside gudaha salka or ama outside banaanka of the body jirka. Sweat gland qanjirada dhididka qaabilsan, mucus gland qanjirada xabka soo daaya, anda iyo salivary gland iyo qanjira candhuufeedka, and other digestive gland iyo qanjiro kale ee kamid ah habdhiska dheefshiidka. Examples waa tusaalooyin kamid ah exocrine gland qanjirada marinka leh. Hore waxaan soo baranay kuwa marinka lahayn oo waxaa kamid ah pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, testis gland, pancreas gland, ovary gland. kuwaas waxaa loo yaqaanay endocrine gland qanjirada marinka lahayn. Haddaba kuwa marinka leh tusaale ka bixaya lagu dhihi karaa. Okay, waxaan leenahay markii waxaa kamid ah qanjirada marinka leh waxaa kamid ah sweat gland qanjirada dhididka, mucus gland qanjirada xabka soo daaya, salivary gland qanjir candhuufeedka, and other digestive gland iyo qanjiro kale ee shaqo ku leh waxaa lagu magacaabaa habdhiska dheefshiidka. waa tusaalooyin kamid ah endocrine gland qanjirada marinka leh. Thank you, aad iyo aad u mahadsantihiin. halka ay noo joogto insha Allah tacaala ku sii wadi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.